Hi friend, haddii aad channelkayga hore subscribe u dheheen subscribe dheh gambaleelkana taabo si aad u noqoto qofka koowaad ee fiirsada channelkayga. Waa mahadsantihiin daawasho wacan. Haddana waxaa soo gelinayo asalaamu calaykum, kusoo dhawaada channelkayga Ikran Beauty. maanta waxaa noo wadaa wax timaha oo massage saliid massage timaha lagu massageenayo iyo waxyaabahan ka sameynayna waxay yihiin. marka saliidan waa saliid fiican, saliid qumbo waaye sida u taqaanaan. saliid qumbada marka dabkan saaray iyo dhagayara bas u baahan tahay intaas oo kaliya ta saliida. marka timaha sida ugu massageysanaysidna gadaal fiidiyowga ilaa dhamaadka fiirso sida uu massageenayo si fiican u arag. qofka loo massageenayo Soomaali ma aha, marka massagada sida loo massageeyo haddii aadan aqoonin qof ay dhahay ma aqaana, marka saa u baratid haddii aadan aqoonin. haddii aad taqaanana saliidan maasha Allah timaha saaid ay u dheeraysaa ay u bixisaa. haddii timaha ka go'ayaan ay ku fiicnaysiinaysaa timaha oo mar walba haddii aad timaha haween walba massageysid tima fiican ay ku noqonayaan. saliida marka wax yar soo kululaato dhagayaraha ku shubeysaa. marka saliida marka waa kana soo kululaatay dhagayarihina waa ku shubay. waxaa sugaysaa marka ilaa uu ka gaduudo saliida gaduud ay isku bedelaysaa. marka waa kana gaduud ay isku bedeshay. marka habeen kasta ku massageenaysaa si ilaa iyo waa isku wadaysaa adiga ilaa timaha wax iskaga garato. timahana maasha Allah sidaas ay ku noqotay. marka ilaa iyo wax iskaga garato ku wadaysaa. dhaqso timaha way kugu soo baxayaan. haddii xataa aadan timahaada aaminsaneyn inay kuu soo baxaynin way kuu soo baxayaan insha Allah. taragaray saliidana waa la hubaa timaha way kuu soo baxayaan. best oil waaye, meel kasta adduunka ku joogtana waa samaysan kartaa, way fududahay. saliida nooc kale maan ku sameynaa, nooceen ku sameynaa. haddii aad dhehaysidna olive oil iyo saliidan ku samaysan kartaa. waka timahana marka sida loo massageenayo marka daawasho wacan. waa kana marka saliida ku shubeysaa kadibna massageenaysaa timaha. marka madaxa waa foorarinaysaa. haddii kale qofa iyo massageenaysaa. haddii adiga massageysanaysidna caadi ah saliida u marinaysaa. madaxa salka timaha waa inaad sidaas u massageysaa oo tinta aadan korka ka marinin saliida oo maskaxda sidaas ugu massageysaa. haddii isla fahmnay. haddii baby yar yahay xataa u mari kartaa oo ugu massageenaysaa. haddii timaheeda soo baxaynin ilmo yar yar waxaa jiro timahooda aan soo baxaynin. haddii markaas aad rabtid iyo adiga laftirkaada haddii u baahan tahay inay timaha ku baxaan sidaas u samaysanaysaa. suulka madaxa ku riixaysaa kadib markaas massageenaysaa.